taliska qaybta booliska gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa maanta warbaahinta u soo bandhigay in ay sheegeen inuu soo dilay sargaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab waxaana ninkani booliska Shabeellaha Dhexe ay ka soo qaadeen duleedka magaalada Jowhar. Ibrahim Aadan Macalin oo ah ninkii dilay sargaal ka tirsan ururka Al-Shabaab oo isku soo dhiibay ciidamada booliska gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa faahfaahin ka bixiyay qaabka uu dilay sargaalkaasi. nin shabaab oo shabaab toosanayay أمير شاب كلهم شاب عندهم كنا قانون شاب وين أساي دي أزوجه بيقال هدي أنا عاوز صديبي عاوز صديبي واجدي حتى ويلي وهاري إني دتك غريب أدي ودرس صاحبه درس أنا ما تقدر تلعب تام هيك كذي أنا قام ما توري دي مهدي قبل نيكنا حريص ملا مركز حريص كتجي أو دين تكبر حياة دين تقلب حياة واسك كل يوم ولا دي واسك أصلا دري هنا مجري نيجي عليه عبد الرحمن راح على حكت لنا حرب برسنا تبين أنا كل سنة يجي أبني وهو بس ما على جلسة ولا هني كل أنا قابل كذا ما غني غيره ما يغني غيره اللي بعتبر جيستي اللي بعتبره هو جيريوني مركي عندي كل هذه نكاس هبين كاس جيريوني مال ربع كنتن يلمح هبين قحوتها يعني وده اللي ورجع ودن كي أنا مركي ربع أسوي أجهره أنت مركي هاي وكلفتي كنتن يلمح هبين كان قفتها ما هدي ودن كان وجري وايد أنت هاي وكلفتي إسكره مركي عودي كنتن يسيد هواس جيريوني كاس هلا حاسس واحد عندي وجريتوا ما هني بقول أصل لسه من ودن كجوكت أنا تعرفين قام كيد ما أنت أجوجني دمشي يوه نلوا اسمنته ويا أنا ودن كيد اللي سوها تاني ودن ولا لا لو ما كان موجود وكان إنك عندي عندي لف ولا صعر واحد عندي سوق يستوي كل ما يصير بيساعد لأنه حالي سومالي ما هي أنت الله إيش يكاد وتواصل في ذا الوقت ودن كي أجوجي هدي أي نفع صار عديسي أو مركز دولي سوجو اللي سوها تي دولة ويصير بيسوي كل ما نقدر في قلتين نقط بحاول كشغيني دهال إذا تبرتي لا يفعل دهال أنك شقينا وأنا قد لي أن هاي ودينتي موت يوم هذا وقأنت هاي أن كان كله ولا لا يهر كريستيان كوجدي دمرك والله طبعا يأفر ساعة وقات أفر طبعا ساعة وقات أنا جو يابان وأبدأ يجارقنت هاي أباور لي هركاني ما أصل لي سوق هاي أركب هاي كان بوريس سوق هذا كلي أفكيس أو هيدا هين عدو ما ده هين taliyaha qaybta booliska gobolka Shabeellaha Dhexe Gaanshaanle Dhexe Khaliif Cabdulla Carfaaye ayaa ka warbixiyay qaabka uu iskugu soo dhiibay ciidamada booliska gobolka Shabeellaha Dhexe ninkan la sheegay inuu soo dilay sargaal ka tirsan ururka Al-Shabaab waxaana hadaladiisii kamid ahaa intii hambal leeyahay ninkii soo dilay nin dhibay oo bulshada ku taagan oo caan ah oo la yiraahdo gobolka Cabdiraxmaan Raaxal la yiraahdo ee laga yaqaan Shabeellaha Dhexe ninkii intuu ceelay dhuxushis kabiilna ilmihiis iyo xoolihiis uu nabadgeli waayay 12 bishan 6 saxaabinimo soo dilay runtii waxaan leenahay waa mahadsantahay shab in tawriin halkaas ay ka muuqataa waxaan rabaa marka inaan u sheego bulshada Soomaaliyeed shabaab ummadii waa dhibay baad ayuu ku dhibay iyo waxaan loo joogo waxaan rabaa inaan u cadeeyo shabaab inay soo rogeen shacabku soo rogeen in xataa ilmaha cashuur ka qaadaan sigo ajnabi oo kale waxaan maqli jiray qofka ajnabiga ayaa bariye aan gumeysiga la jiray qofka cashuura laga qaadi jiray qofka muwaadinka ah waxaan dhihi lahaa in la iska kaashado ciribtirka shabaab Cabdiraxmaan Raaxal nin caan oo la yaqaan gobolka Shabeellaha Dhexe wuxuu ku dhashay Jilyaale waxaa lagu soo dilay 12 bishan 6 saaxiibinimo ee ninka odayga wuxuu ku soo dilay Ceelar Barsan waan idin sheegay wuxuu konton iyo 3 habeen reeday konton ilaa habeen reeday habeen ku dhaxan diloori intaasna waxa ninkaas galay uqdada oo halkaas duurka u galay waxa waa dhibaato u geystay waa shacabkana u geystay ku kala saas u geystay waa iska dul qaadanay laakiin ninkan waa dul qaadan waay markay dadku isku dadnimo ah haddana waxaan la soconaa dilka xataa shabaab runtii Cabdiraxmaan Raaxal dilkiisa xataa iga fuduud oo qayb ka ah waa nin soo dhigtay oo iska noqday maaragtay brigaad roos amal iska noqday dilka Cabdiraxmaan Raaxal iga u fududay ninkaas shaanka ilaa qaranka u sheegay meel laga ogeyn malaha caaw waxaan leenahay waa geesi kulli abaal marintiisana maamulka heer gobol ilaa heer maamulka Hirshabeelle ilaa heer qarnay u taala dawladda federaalka dhexe shabaab wuxuu u qaabilsanaay gobolka Shabeellaha Dhexe koonfurta dhinacan oo qorax koonfurta ah ay u qaabilsan shabaab ninka amiirka dhinacan u qaabilsan waay shabaab ilaa iyo wuxuu xukumaa Gamboole ilaa iyo meeshan ugu dambeeyay oo golley mooblan agteeda ah oo madax ka yahay oo xagga dhaqaalaha sakawaadka ururintooda maanta weerar gaagaaban oo la fuliyo wardoonka waxaasoo asakaabo oo mas'uulka gobolka dhinacan asaa wixii qorax koonfurta asaa mas'uulka اللي يقانو Cabdiraxmaan Raaxal yiraahdo Iqraa Cabdullaahi Raage qalladan TV-ga caalamiga Soomaali Cable xarunta dawlad goboleedka Hirshabeelle magaalada Jowhar